قدر دي دين تدوق فانها ولما قبضان واحد دين كسابسن واحد أقل كسابسن لما قبضان تذكر وقاسيا waddanka Qatar waxa uu martigelinayaa saala socotaan koobkii kubadda cagta ee adduunka waddanka waxa soo booqday dad ka badan 2 milyan oo qof oo daafaha dunida ka yimid isla markaasna haysta diino kala duwan adduunyada waxyaabaha ugu hadalhaynta badan waxa kamid ah in Qatar ay aad ugu dadaalayso dadkaas aan muslimiinta ahayn inay marka u yartahay inta ugu badan ay diinta islaamka ka qaataan faham wanaagsan waxa kamid ah xaruntan aan hadda soo booqday xarumaha aad ay u soo booqdaan dadka ajaanibta ee dalka soo booqday iyagoo sharaxaad laga siiyo diinteena wanaagsan ee islaamka sheekh aadan waxa uu kamid yahay isagoo awadaad Soomaaliyeed dadka xaruntan ka shaqeeya aadan soo dhaw maqaaxida Shiina Culay waa ku mahad celinaya xarunta aad ka shaqeysaa maxay qaabilsan tahay maxaase macluumaad oo kooban oo iyada ugu horeyntii anaga siin kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim Shiina adii iyo akhyaartaada wadiya kusoo dhaw waddanka Qatar khaasatan markas Sheikh Abdullah bin Zayd Al Mahmoud Islamic Cultural Center magaca waa dheeryahay laakiin waxa dhihi kartaa bin Zayd Islamic Center horena waxa loo oran jiray magaca la yiraahdo Fanaarna waxa la yiraahdaa waa light saad aragtay ismahan waa dhismo oo mumayis ah oo ka duwan ismayaasha magaalada light house ayaa laga soo qaatay dadka markay badda marayaan oo ay rabaan inay magaalo ay ku laaxdaan waagi hore badda geeskeeda waxa laga taagi jiray nalkaas lagu soo hirin jiray marka dhismaha marka la taagay ujeedada loo lahaa waxa weeye in dadka muslimiinta lagu soo hanuuniyo waxa la dhisay taqriiban 17 sano ka hor dowladda Qatar waxay u tala gashay in dadka diinta lagu gaarsiiyo hadday muslimiin yihiin oo aysan carab ahayn iyo hadday gaalo yihiinba labadaba waxa loogu sharxaa luqadahooda tanaana ka mas'uul ah dadka gaalada ah saad hadda aragtay waa la soo dhaweynayaa qaxwa la siinayaa waa loo sharxayaa culture-ka loo sharxayaa islaamka loo sharxayaa kutubo iyo hadiyad waa la siinayaa waxa kale oo inta ka muhiimsan waxaan ka jawaabnaa su'aalaha ay qabaan islaamka dadkaas waa dadka Yurub inta badan ka yimaado ka bacdi qofka markaan kutubta siino hadii uu doonayo inuu diinta galana waa soo dhaweynaa hadii aanu rabin inuu diinta u galan laakiin macluumaadkii u baahnaa baan siinaa marka shaqada ugu weyn ee markaskan uu qabto waa taas waxa kale oo markaskan u dheer jaaliyadka waxay dhahaan waan ahayn carabta ayaa muxaadaraad ku qabsado qaacadada aragtay ee hadda 625 kursi meelaha ku yaala culimada Soomaaliyeed waddanka tamid meelihii ay wax ka jeedin jireen weeye xataa ra'iisul Soomaaliya markuu waddanka yimid waxa kale oo yimaada wufuud kala duwan adduunka dad gaala madaxweynayaal ay ra'iisul wasaare iyo safaraa dad badan baa loo yimaada marka sidaas ayaan ugu sharaxnaa islaamka sheekh aadan hadda aada u mashquulsanaydeen dad badan oo wadamo dibadeed ka yimi baa soo boqonaya xaruntan ilaa ay hadda intii koobka adduunka uu socday ma jiraan dad diinta islaamka qaatay oo xaruntiina soo boqday meeshan horta waxa weeye annaga shaqadan ugu cusbo corona ka hor inta in ka badan bay imaan jirtay corona dib u dhacay had dadka yimid dad diin soo galay waa leeyihiin laakiin tarkiiska markaska ma aha qof kasta oo yimaado in la xoog lagu saaro diinta galama tarkiiskana koowaad waxa weeye in qofka waxyaabaha qaladka uu ka aaminsan islaamka loo sharax taasaan xoog saarnaa waa muslimin yawmiyan qof baa hadda inta ay imaan ka hor saacad qof baa muslimay laakiin anagu maadaama aan nahay markas dawladeed ma faafino yaa muslimay iyo maxaan ku raahday fiidiyoyada aragteen meelaha wareegay lama faafiyo dadku laakiin diinta waa la gaarsiiyaa markaskan faruuciyo badan buu leeyahay furuuciyahaas ayaa dadka diinta lagu gaarsiiyaa waxa taa ka muhiimsan Shiina oo ku sheegaya oo adiga la taa ka qayb qaadan kartaa waxa socota xamle liyaad barcode kutubta adduunka dhan baa la tarjumay markaas waxa loo sameeyay barcode oo ku tusi doona hadda biyaha cabaysay barcode buu lahaa haddaad ku dhufato kamerada waxa ku soo baxay inta kutub oo la tarjumay inta luqad ay yihiin marka taas hadda aad loo faafinaya waxa kale oo iyada muhiim ah oo ay dadka ay ogaadaan dowladda Qatar ugu diyaar garowday hawshan waa hore la bilaabay wax cusub ma yani in meeshani diinta laga faafiyo waxa ta koobka adduunka loogu talagalay ma ahan horay ayay u socotay waa juhdi socday way waxa way waa dad badan baana ka faa'iiday anagu
ما dhihi karno hadda dad badan gooni oo ayaa intii yimid ka raxan u muslimay hadafkanagana ma aha laakiin islaamku waa la sharxa waayahay dadka soo booqanaya waa dad oo qaarkood Latin America oo aad u fog ka yimaaday qaarkood Yurub ka yimaaday dadkaasi fikradaha ay marka la sheekaysataan waa u jeeday marka wadeen waxba u sharaxayseen marka la sheekaysataan fikirka uu islaamka ka aaminsanaa maxaa iska bedela markuu halka yimaado wax badan baa iska bedelay anaga jawaabta su'aal baan noo weydiinay su'aashan u jawaab hadda mesela marka intaan hadda aan ku iman nin baa wuxuu la weydiinay wuxuu yiri meeshii waxaan u sharxay xuquuqul mar'a naagta qofta dumarka xaq ay ku leedahay islaamku u siiyay markuu aad u helay wuxuu yiri laakiin qaar waxa jiro yiri dumarka aan saa u ixtiraam maxad ka wadaan ku yiri wuxuu yiri mesela Sacuudiga camal lagama ogolo inay dumarka looma ogolo inay baabuur wataan waxaas waxaan ku yiri ma ah diinay waa qaanuun iyo shariico wadankaas u taalo waay laakiin ka islaam ahaan gabadh wax kasto ay u baahan tahay qabsan kartaa marka uu la yaabay hadafka dhan uu rabayna waxa ay intaas bal dumarka wax ma loo ogol yahay marka wuxuu daliil ka dhiganayaa maadaama aan Sacuudiga laga ogolayn hadda waa laga ogolay waa hore waxay maqleen Sacuudiga darawalnimo iyo dumarka wax gaari ma kaxin karaan buu maqlay waqti wuxuu qaatay in dumarka xuquuqdooda la doorsiinayo laakiin xuquuqda dumarka inta waa ka badan tahay يعني أيوة إحنا إيمانيا كسر قاط أيوة boy friend girl friend ولا صعدة هذات كنت هذا ورقبنا boy friend تواني تدوسنا أدويتين ما جوست وحكولي no it's not ready حقوق إن لا ذهن وكل شيء مركا حقوق ربطة إسلام كأساسية مركا لا شيء كيستنا هو يفهم يعني ذاتك أنت هذا بدن والله قلدي وأكتين هذا BBC حملة ده وده ماشي أسكت تجينا برايا كجست لكن ذاتك مركا كوي مادان السؤال هذا وجوابته أيوة قرأ سنة كاتريان waa tahay xalakan dadka soo booqanaya oo World Cup ka soo qayb galaya marka ay laabtaan maxaa isleedahay dalalkoodii waa ku celin doonaan fikir nooca ah ay diinta islaamka iyo wadankan qadarba ay ka qaadan doonaan iyadoo aan ognahay in markoodii horeeto wadamada islaamka guud ahaantood iyo qadar intay World Cup ka qabanaysay dacaayado badan laga faafiyay arrinta horta booqashada wadankan dadka ay u yimaadeen wax badan baa iska bedelay tusaale ahaan hadda dad Twitter iyo waxa la socday dad qadar yimid ayaa u jawaabay kuwii wadamadooda joogay waxay leeyihiin waxay aad noo sheegaysaan waxaan ahayn baan meesha ku aragnay annaga qofka wadankan qadar ku nool ama yimaado بريت أسرع سفيركوا إسرع الله اللي دت كيسة أسرع أشرحي أسرع ما حنتج مساعد كالإيجي صلاة لتكونيان أركي مجلس كودان تجي شهبان لعبي وادت في عن إسرع هذا الدفاعي إسلام وحويها مركا أنك باهنين نكاني هدف كنا كلمة إنه إسلام تجري نكاني ماله مواقف أو عادية أذن جوي كرين أي دفاعية مركا واحد بدن بإسلام قطرية وحتى مرة كقاركود وحركيسها يعني قفك أنك عن وقت سيني أي وطن الجرمل كنت كوي ما هذا حكوا مسميه قف جرمل كأسود جوجا إسلام كله شرحي وهل كان نووي من أي مسلمين مركا وهذا رسالة مركا تفافني يسد لو ما فافي قف كان إنه ما أنت مسلمة دتك أنك ماشي إنك كسر مسلمة أما وطن جودها كسر مسلمة دن وده مالك الإسلام كله شرحي أيوة ديار بينو إيمانيا أنا قاعد أتكلم ديارنا كم كلام ديارنا ودمدينا يكون إيمانيا وحيا تلابي الهروس وقاعد شهادة كل واقعية ما إن شاء الله وحنجعلها هي إني فرصة ده نقطة فرصة إيجارك فائدة ستو وواحد بدل نكواد ده وأرنت وورلد كاب ما هين وح ماشي ميسك لصوص هاري وحلي أخلاق الإسلام كان يوحيابها أدليته أي كتر تميي وباش waxay isu bedeshay macraka oo diini ah ay isu bedeshay dadkana indhahooda wax ku arkeen 2 milyan ku soo boqoto hadda markay noqdaan ninka ugu yar baa xulay war meesha dagaalku ma arag waa kan u yar kan kala diintii u sharxaya akhlaaqdu u sharxaya wuxuu soo arkay u sharxaya marka xadath aad u fiican waa insha Allah fariin fiican ay qadarka ay kala noqon doonaan saasaan rajaynaa biidhnillah ta'ala waxaan arkay dad badan oo cadaana oo ajaaniba oo halka soo booqday oo marka u sharaxdaan ka bacdi hadiyada siinaysan hadiyadaha dadkaas san maxay yihiin hadiyada waxa way waa hadiyad ramsi oo wadanka waxyaabaha wadanka xasuusinaya ama qalin ha ahaado ama waran iyo kutubo macluumaadka aan gidaarka ku qornad aragtay oo akhrineynay kitaab baa loo rogay understanding islam waxaan loo turjumay weeraan la 8 luqadood
معلومات كان ومعلومات أساسية وأي أباهين قال سؤال شكوبات وبوك كوقر what is Islam إسلام محويه صفحاتك حكته وحكو قرن يا وح أبو ري صفحاتك حكته وحكو قرن أنبيدي أو أركتي ماشي اللي هو كود قرن مركب قف كمركي السؤال أدو جوابته ما هو what is Islam يا أبو ري إيه أنبيدي بركو أركو وحورت الدريمية إنه wax badan naga dhaxeeyaan kabacdi markuu yimaado maxaan ku raahdaa qaybta icjaaz markii quraankii oo sayniskii wax ka sheekeen marka arkaan way la yaabayaan runtii buugaagtaasi aan meesha ku qoran wax badan ayay dadka maskaxdooda ka bedelayaan luqadaha faraha badan ay ku qoran yihiin laga faa'iideysto ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa dadka aan gaarsiin dowladda Qatar waxaa lagu tilmaamaa dowlad mar walba u heelan difaaca iyo faafinta diinta islaamka wadana kan muddo dheer baad ku noolayd haddana adduunyada indhaheedii oo dhan ba u soo jeeda meel xagee abay ka taagan yihiin bal aaminsan tahay difaaca iyo faafinta diinteena Qatar de diinteedu ku faanta waa lama gabadan wixii diin ku saabsan iyo wixii dhaqan ku saabsan lama gabadan dadka waa gaarsiiyaan adduunka aslan waa calaaqad wixii calaaqad ah way ku fiican yihiin waa maslaxadooda wixii soo gashay laakiin markay diidan timaado haddii waa ogtahay maanta xadadka maanta world cup intii loo caga jublay oo li haddaadan waxaan aad samaynaysaan aadan joojin waa idinka qaaday ku soo fariisay ma yeelin marka qofka wixii akhlaaqdiisa iyo diintiisa waa inuu ku adkaado dowladda qadarna arrintaas kulli dad badan baa ugu oo waddanka soo boqday adiga aad ka mid tahay waxaa weeye waxa gorgortan lagama galo wixii diinta ku saabsan dadkana lama culaadiyo qadar cidna ma culaadiso laakiin markay diinta timaado waad aragtay in aan ay aad ugu adag yihiin kama muuqato runtii markaad aragto wadamada islaamiga ee la leeyahay waa wadamo mutadayiniin ama ah laakiin markaad shacabka aad u dhawaato waa shacab mutadayin ah ma sha Allah gabagabadii dadka Soomaaliyeed halkan ku nool maxaan ku raahday dad badan oo waxaan arkay ilaa dhowr qof ba halka kaga shaqeysaan bulsho badan oo Soomaaliyeed baa Qatar ku nool door noocee ah bay dalkan ka ciyaaraan Soomaalida ku nool والله Soomaalida jaaliyad kale ay yihiin tiradana waa yar tahay laakiin way ku caanamayeen waa meel kasta oo ka shaqeeyay hadda anaga afar baasaad aragtay afar qof oo ka shaqeeyay halkan meel kalena waa laga wada shaqeeyay wasaaradaha dhan shirkadaha dhan hay'adaha dhan Soomaalida oo ka shaqeeyay marka waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo hadda Cornish wali Cornish ma martay ha Cornish Soomaaliya dhistay jabiisu leeyahay waa dhul biyo la oo la daboolay way ma la socdo meesha si fiican goor xiliga dhisan waagii 780 markii halka imaadeen ayaga ka qayb qaatay daruuri bay ku shaqeyn jireen ayaa u badan halka hawshaas qabtay marka tirada waa yar quality ma yihiin laakiin majaalka waa joogaan ee Soomaaliya شيخ آذن عبدي أو كشقية مركز كشيخ عبد الله بن سايد آذي بأمها سنتها أو مركز هوري الأورنجري نور أو إنه شرحي دتك حرونة الصوب بغض دين الإسلام كلفهنسيو آذي بأمها سنتها